waxay kaga dhigan tahay kubadda cagta dib u doorashada madaxweynaha Mareykanka ee Donald Trump xilli madaxweynaha Flfa Infantino si weyn ugu farxay dib u soo laabashada madaxweynaha Mareykanka ee Donald Trump. madaxweynaha Flfa Gianni Infantino ayaa u hambaliyay Donald Trump oo dib ugu soo laabtay xilka madaxweynaha dalka Mareykanka. Trump ayaa lagu dhawaaqay guushiisa kadib markii uu kaga adkaaday doorashadii Mareykanka Kamala Harris oo dimuqraadiga la tartamaysay. koobka adduunka ee 2026 waxaa martigeli doona dalalka Mareykanka, Canada iyo Mexico, iyadoo koobka uu ku laabanayo waqooyiga Amerika kadib markii ugu horeysay tan iyo 1994. madaxweynaha Flfa Gianni Infantino oo la kulmay Trump dhowr jeer wuxuu kala hadlay wax ku saabsan koobka adduunka, sidoo kale waxa uu kala sheekaystay furitaanka xarunta Flfa ee dalka Mareykanka, taasi oo la aasaasay sanadii 2023. hambaliya mudane madaxweyne Infantino ayaa bartiisa Instagram-ka ku soo qoray kadib markii la shaaciyay guusha madaxweynaha dalka Mareykanka ee Donald Trump. waxaan ku yeelan doonaa koobka adduunka ee Flfa kaalin weyn, ayuu yidhi madaxweynaha talada dalka Mareykanka dib ugu soo laabtay ee Donald Trump. koobka adduunka ee 2026 ayaa isbeddel badan oo ka duwan qaabkii loo ciyaari jiray lagu arki doonaa, iyadoo tirada ka qaybgalayaasha la kordhiyey koobka adduunka ee nagu soo fooda leh. in mar kale la doorto Donald Trump ayaa si gaara waxa ugu farxay madaxweynaha Flfa Gianni Infantino oo horey ay kaga wada hadleen wax badan oo ku saabsan koobka dunida ee 2026. madaxweynaha dalka Mareykanka ee dib loo doortay Donald Trump ayaa dhowr jeer soo bandhigay xiisaha iyo jacaylka uu qabo kubadda cagta, isagoo horey ugu dhawaaqay inuu yahay taageero weyn oo kooxda Arsenal ah, sidoo kalena uu si weyn u jecel yahay daawashada ciyaaraha kubadda cagta, sidoo kalena si weyn u dhiirigelinaya hablaha dalka Mareykanka ee ku guuleystay koobkii adduunka. madaxweynaha dib loo doortay ee dalka Mareykanka ee Donald Trump iyo madaxweynaha Flfa Gianni Infantino ayaa dhowr jeer ka soo wada muuqday goobo kala duwan oo qayb ay ka tahay garoomada kubadda cagta iyo sidoo kale tartamo kala duwan, iyada oo xilligan si weyn ugu soo dhaweeyay sidoo kalena uu muujiyay taageero weyn oo ku aadan dib u doorashadiisa dalka Mareykanka.